الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. باب حرمة مكة. هذا باب حرمة مكة. مكة احترام كذا يوينين تيدا أيو كانوا باب يهي. مكة واسم للبلد الحرام الذي جعله الله تعالى بلدا آمنا ومقع بلد كي حرمة لها وليهي إلهي سبحانه وتعالى وكدغي بلد آمنا dadku ay aamin ku noqonayeen dhaxdiisa diintooda ay dhiigooda iyo maalkoodaba aamin ugu noqonayeen bal iska badaayo ugaadha ama xayawaanka ayaa aamina xaramka dhaxdiisa oo dhirta xaramka ayaa aamina xitaa oo la jaraynin la yunfaru sayduhu wala yuqta'u shajaruhu ugaadhiisa lama didiyo oo kan xilmaysidba waaba dilisay إلا حيوان ير أو وحدبا أو رسولك أصور ريبين مويانو إنو إمان دونا إن شاء الله نرتي سنة لما تشارو إلا بني آدم كوحو بيرتي موياني بني آدم كوحو بيرتي وقوصان كرا وقوين كرا سرع أيو وحيالها أبيري أنا أبي شريح خويلد بن عمير خويلد بن عمر الخزاعي العدوي أبي شريح وحا لقوري رضي الله عنه أنه أبي شريح قال لعمرو بن سعيد بن عاص وحا وكيري نكال إلى عمر بن سعيد وهو والحال هو عمرنا يبعث أدرايو البعوث إذا ما أدرايو إلى مكة أدرايو يسوى مكة إذا ما أدرايا كدقالما وحا وكيري أبو شريح إذن لي فصح أيها الأمير أمير يهو أنا أحدثك إن كاغا شاكيو قولا هذا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول كي الله يري وإسلتاغي إن كاغا شاكيو أن كورمو فصح أيو يري القدم يوم الفتح براتو مكفرتي صباح دي دنبه هذا الرسول كو اسلتاغي وكو خطبدي ان كو شيغو فسح بودي هذا الكاسو فسمعته اذناي لبيد دودا اي مقلين ووعاه قلبي يغنا او كوبي وابصرته عيناي لبيد ان دودنا اي اركيين حين تكلم به مركا ورسولك هذا عليه الصلاة والسلام انت إذا سبوي سوچيدين أنه رسولك حمد الله وأثنى عليه إلهي بوكو حمدي مركو خطبة هذا بلاباي إلهي بو أماني سبحانه وتعالى ثم قال رسولك وحاولي إن مكة حرمها الله إلهي أي سبحانه وتعالى حرامي تعالى كرهي إلى ما حرمة السيي يوم خلق السماوات والأرض دراتي إلهي سموينك يدلك وأبوري أي إله سبحانه وتعالى وحرمة سيي ولم يحرمها الناس لكن مكة تدك حرمة موسين إلهي بسيي فلا يحل حلال ماءها لإمرين روح حلال ماءها روحه يؤمن بالله واليوم الآخر روحه صور ميي إلهي يبرارت الدم وقيامها روحه يسقى حلال معها أن يسفك بها دماء إنه ليك مكا كدادية حلال معها الروحه ولا يعضد بها شجرة جيت كيسان إنه قويا حلال معها يا رسول عليه الصلاة والسلام فإن أحد هدور روح ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدور روح دليشدو أو رخصد أو كقاطو دقالك رسولك عليه الصلاة والسلام فيها مكة يحرمك وكل دقالمي فقولوا وحت الآذان إن الله إلهي قد أذن لرسوله رسولك سأيو أو إذني
walam ya'dan lakum idinkasa idinmuu idnin rasuulkiisa ayuu u idnay cid kalesa umuu idnin wa inamaa adina lirasuulihi saacatan min annahaar rasuulkiisana wuxuu u idnay waqti dharaar ka mid ah saacatan waqti oo min nahaarin dharaar ka mid ah ayuu rasuulkana u idnay waqad caadad xurmatuhaa rasuulka hadalkiisii weeyaan waxaa soo noqday xurmadeedii alyawma maanta wa dharaartu maka qabsay subaxdeedii dambe xurmadeedii baa soo noqotay ka xurmatihaa bil amsi sidii xurmadii ay shalayta lahayd oo kaleeto xurmadii intaanan ku dagaalamayna alla ii fasixin ay lahayd tiibaa usoo noqotay maanta ayuu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam falyuballiq ha gaarsiiyo ashaahidu ruuxa xaadirkaahi ee joogaa khudbadaydan iyo hadalkaygan iyo xukunkan isaga ah alqaa'iba ka maqan ruuxa maanta joogaa ee hadalkaygan iyo khudbadaydan dhegaysanaya ruuxa maqan ha gaadhsiiyo sidaasuu ku yidhi marka camar binu saciid oo ciidamada maka u diyaarinayay faqiila liabi shureex markuu abi shureex ka soo noqday camar ayaa dadkii ku yidhaahdeen maa qaala laka camrun camar muxuu kugu yidhi markaad hadalkaa ku tidhi eed hadalkii rasuulka u sheegtay khudbaddaa rasuulku uu aqriyey camar muxuu kuu celiyey qaala waxa uu yidhi ana aclamu bidalika minka aniga aclamu og bidalika arrintaa iyada ah eed ii sheegtay minka anigaa kaa og hadalkaasuu ii celiyey yaa abaa shureexow ina alxarama xaramku laa yuciidu magan gelin maayo caasiyan waa hadalkii camar binu saciid hadalkiisii weeyaan ina alxarama xaramku laa yuciidu caasiya ruux caasiya ma magan gelinayo walaa faaran bidamin iyo mid dhiig la cararaya ama dhiig ka cararaya walaa faaran bikharbatin iyo mid khayaano wada midna xaramku magan gelin maayo hadalkaasuu ii celiyey buuri qisadan waxay ahayd abu sufyaan bin mucaawiya oo amiirkii muuminiinta ah ayaa waxa uu u dhibay amiirnimadii uu ku wareejiyey inankiisii yaziid buuri maanta laga bilaabo adigaa muuminiinta amiir u ah yaziidna camar binu saciidkan ayuu marka uu sidaa yidhi ee yaziid laga dhigay waa boqortooye oo kale isagiibaa amiir ahaa halka odhan laha muuminiintu ruuxa soo doortaan waa khaladaadka ay sameeyeen reer bani umaye odhan lahaayeen ruuxa idinku fiican soo doorta ayuu inankiisi yidhi amiir adigaa muuminiinta u sarreeya markaasaa dabeeto culummadu ay asxaabta barhkeed diideen waxaa ka mid ahaa cabdillaahi binu zubayr oo nebiga eedadii dhashay ayaa ka mid ahaa oo markaa ka ahaa waali ka ahaa marka wuu diiday inuu taasi uu la mubaayacoodo oo uu yidhaahdo rumeeyo amiirkii muuminiinta inuu yahay yaziid inankaa abi sufyaan uu magacaabay inuu amiirkii muuminiinta yahay wuu diiday dabeetana camar binu saciidkan uu madiine haystay markaasi ayuu yidhi ninkaasi amarka diiday ee cabdillaahi binu zubayr ee maka waaligeeda ah ninkaasu waa inuu ama ogolaadaa inuu yaziid yahay amiirulmuuminiin haddii kale waa in la dilaa kacbada lagu dilaa qisada caynkaasay hayd markaasuu ciidama u diyaariyey camar binu saciid markaa weeyaan marka uu la hadlayo abi shurayx waa hadalka rasuulka gaadhsiinayo calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha aynu ka faa'iidaysanayno waxaa ka mid ah fawaa'id tiro badan baa ku jirta intaynu kasoo qaadanayno abi shurayx fadligiisa waayo waxa uu waajahay nin amiira ayuu xaqii la waajahay isagoon ka baqaynin ayuu ninkii amiirka ahaa uu la waajahay xaqii uu rasuulka u sheegay khudbadiisii xaq ahayd
waxaa kaleynu ka faa'iidaysanaynaa dadka markaad ruux madaxa lala hadlayo in si dabacsan loola hadlo si qalbigiisa loo soo jiito. waayo waxa uu yidhi idan inaan kuu sheego rasuulku khudbaddii uu isla taagay dharartii caynka ahayd markaasuu u idnu yidhi waaye balwad. waxaa kaleynu ka qaadanaynaa xadiidkan asxaabtu siday u qirsanaayeen asxaabtu siday u qirayeen dadka madaxda ah walow faasiqba ha noqdee ninkii markaa madax noqda siday u qirayeen. waayo haddii lagu kaco fitan ka badan iyo islayn iyo dil baa ka imanaya iyo dhiig daata. markaa kii qabsada meesha faasiqna ha noqdee way qirayeen. waxaa kaleynu ka qaadanaynaa in warka aada ku adkayn karto waxyaalo inay run tahay aada ku caddaynayso warka sababa aada ku sugayso in warkaa aada sheegtay uu yahay dhab. oo waa kan waxa uu leeyahay abushuraax waxa uu leeyahay marka uu caynkaa rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam dhagahaygaa maqlayay qalbigayguna wuu koobay indhahana waan ku hayay rasuulku markuu hadlayay buuri. wuxuu ku akidayay xadiidkan uu u sheegayay camar bin saciid. waxaa kaleynu ka qaadan karaa xadiidka oo fawaa'idiisa ka mid a khudbad marka ruuxu uu khudbad aqriyayo inuu xamdiga ilaahay iyo ammaantiisa ku bilaabo. waxaa kaleynu ka faa'iidaysan karaa maka xurmadeeda iyo ixtiraamkeeda in uu yahay ixtiraamka iyo weyneynta alla weyneeyey mid xagga alle ka yimi ee dadku miduu sameeyey maaha. ilaahay subxaana wa tacaala xurmada iyo weyneynta uu siiyey maka iyo xaramka waa mid ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey ee mid dadku uu sameeyey maaha. waxaynu ka faa'iidaysan karnaa waxaa ka mid ah axkaamta ilaahay oo laysku laasimiyaa waa min lawaasimi liimaani billahi walyawmi alaakhir. axkaamta ilaahay oo la qaataa waxay ka mid tahay min lawaasimi liimaani billahi walyawmi alaakhir. ruuxa qaadanaya inuu yahay ruux alle iyo rasuulba rumeeyey. waxaynu ka faa'iidaysan karnaa oo kaleeto ilaahay iyo dhararta dambe oo la rumeeya inay tahay aqwaa raadicin can intikaaki maxaarim illaah. ilaahay iyo dhararta dambe ee qiyaamaha oo la rumeeya inay tahay wax ruuxu uu ka joojin karaa inuu xaaraam sameeyo. mar hadduu ilaahay rumeeye qiyaamahana rumeeyey oo la isxisaabinayo oo ruuxa lala xisaabtami doono ruuxu markuu intaa rumeeyo inuu xaaraamta ay ka joojin karto arrintaasu iimaanka isagii. waxaa kaleynu ka faa'iidaysanaynaa dilka iyo ku dagaalanku maka dhexdeeduba inuu xaaraam yahay. maka maahe waa xaramka dhammaatii waa xaramka oo dhan. waxaynu ka faa'iidaysanaynaa dhirta xaramka in la jaraa inay xaaraam tahay. dhirta xaramka in la jaraa inay xaaraam tahay wixii bani aadamku beerteen mooyaane nabaadka uu beertay bani aadamku mooyaane iyo wax yaroo kale oo iyana ma garanaysaay inoogu iman doona axaadiista sida idkharka oo kale. iyo waxaa kaleynu ka faa'iidaysan karnaa xadiidka hubuutu takhsiisi nebiyi bibacdi alaxkaam. nebigu inuu axkaamta badhkeed uu gaar la ahaa. xukunada ilaahay subxaana wa tacaala uu soo rogay badhkood nebiga inay gaar ku ahaayeen. waayo nebiga keligii baa loo fasaxay inuu ku dagaalamo maka oo mushrikiintii la dagaalamo oo uu ka badbaadiyo shirkiga iyo gaalnimada.